golaha malaagyada degmada Xudur ee Harunta gobolka Boqol yamay baqordeena boog ka qoranyi heerka dhaganka gobolka Boqol dhinaca kale malaagyada yamay bal ka daray hanraab iyo dhalinyaro fududay doonaan howlo badan oo horaan aqabad teegan hayti warowka boogaagtan odayaalka dhaganka yamay ba ku caawiday hay'adda DDG oo sameeytay mashruuc amni cadaalad Soomaali kaasoo tababar ballaaran la kasi odayaalka dhaganka iyo hay'ado amniga iyo garsoorka mayba iskiirlan sameeyay laamo amniga maxkamado oo dhamaantood ku dhaxaytay wada shaqeyn ballaaran mayba arintaasi wal ku weydiinay malaaqali aadan weer iyo xukuumadda xubnaha malaaq balaas waana gudoomiyaha ururka haweenka degmada Xudur Faadimo Abdiraxmaan taageeraynu ku baahna marka hore taladiin ku baahna wada shaqeyn ku baahna qofka dhabka qabay qofka kale ogaashada ku baahna way gelintan ku baahna haddii aad mas'uuliyad sharaaq qobada tar malkumood beed faaruga may ku qaaday leeyahay meel qof banka noolaan malkumoodkana waa ma gidlaw haddii aad meel bidaadan googaynay dad badan shiryaanay dad badan weeranay dad bukin ku damboynay meel badan kirinayn shaleeda hooba meel surinto khudbayta masaadal la wal ko qaada umle markan meel bulshirogdo isaamin jaro abni jaro yamarna kwada dhagama kor saasa ku aaminsigna ni maarna bulshaduna eed una kalsoon ka qabniyana ninka qabti aaminsigna may baagan dirane ani isnadgiliyaan ani iswalaaladan ani kan dhabka qabolsiyaan ani kidamada duugan ani wal alla walaayilan ka baniyaadan ka sharijar hadii la qabsado shariga la kisalba awoodun sheegana laandeernama lan sheegana deris sheegana tuuli magaalo lan sheegana saaloogaanga maarna lan wada shaqeeya maarna ka baagan madahor muslimtama ee walaalama iskala dhaqma oo madahor balaamay kasta lan ka reegishay ku dambeeyt ilaahay baa iri ana ma erno maan awoodee malihi laakiin wala ilaahay iray oo ninka toosna xawdayna inay rata inay meel raay darisje isku amaan galiid ani awlaad maalin kasta la iska galo balaana iyada meel raay maskantaan ragaysan eta oo tusata lan alla lan ki dariska ee xumaa in awlaada keen ku reebaan aniga mutatusato odayaalkii ee dadka gudi balaas malaag balaas hal wadaag toob iyo ku fursadu waayta iyo iyaalka shay ambilan daris amaan sii waa iyo hansheegda dhabsho walay hawgudi ee shal qaad bilaay in suubin ani mutatosan la dhagad ani bulshada walaalama la soo qofku walaalka ka ay hobad ku weydiida walaalama dhibaatada in horkan ani dagal ku yaaw mar walba wali in baaqay haween walba nibada dadka deegaya in nibad in maslaxa ay walaalama iska la noolada yaanka baaqay Sheekh Abdi Hussein Iman waa gudoomiyaha maxkamadda raafaanka gobolka Boqol mayba u sharaxaya sideen isla shaqeeyaan iyo odayaalka dhaganka odayaalka dhaganka oo degmadan Xudur yoonay ama gobolka Baadil iyo culimada maxkamadda dadeediyad wada shaqeyntii oo faylato walwiin oo badan yan oo kaabayan odayaalka kaasoo kiisaska qaar oo maxkamadda intaan deerin iyo xaliyayaan wayba ka dhakanta ani odayaalka kaalin weyn oo maxkamadda dhankasheena ulees lay kanaga fadi ku fududayaan ya may waha mar badan jiraasa marmarna kiiska hadii maxkamadda bahadeer ka bacdaje oo xukun dhig ka bacda ya odayaalka may waha qeyb qaadayaan sida dhiig oo kale misaal ahaan laga may balan hukumay dhiig lan hukumay boqol gaal ee balan hukumay diladi ka bacdaje way waha odayaalkaas may waha hooliye qobdayaan gaalas boqolka neef ee geele qofkii dilanjeysidii maxkamadda hukunti ku caawiyaan ha qaadayaan marka qaabab badan oo eed muhiim ah ya odayaalka maxkamadda ku kaabayaan maxkamadana eediyada may waha arimo badan oo iyo uleeska hay ku fududayaan wada shaqeyntaas oo saasan wanaagsan oo bulshada walan qobad dhamaantii oo hadii maxkamad ay tahay odayaaliin badad oo may waha bulshada walan qobad hayo bulshada inteegan marka
Cabdullaahi Maalin Jamaal waa sarkaal ku tirsan hay'adda DDG mayba u su'aal ku weydiinay muhiimadda uu leeyahay mashruuc amni cadaalad Soomaaliya odayaalka dhaqanka iyo waxyaabo fududaayaan jari way bala dhisay golo malaaqi horaanba dhisanaayeen laakiin qayb way la ka daray oo dhalinyaro iyo haween la ka daray si in ka fududaata dhibka meel kasta ku kooy hadii haweenka hadii dhalinyaro ka dheedo in dad oo ka aadno walaay fahma wal ku qobad kor lan hela naga toy bilaamay oo la kufsaday intii qof oday lan darafadi bilaamay lan dare oo gudiga gurti balaaska ka tirsan si in baarti iyo cabashadii ay walaajihan ku ogaad marka kaaseenkii hata shaqeeyahay oo ilaa iyo kiisas badan hata xaliyaan saas oo kale mashruuc intii jari way ba la dhisayhan saldhiga degmada Xudur way ba dhisay gudiga CBDC iyo fangna ku heleen DDG saas oo kale qaraangna ku heleen bulshada deegaanka Abdi Ali Ibrahim telefishinka iyo raadiyo dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada Xudur